xaniyahan saaranahay Puntland ma wataa xaniya cad cirka cabaari jira miyaana waxa weeye saynu wada ognahayba bari waxa u dhacaysaa koonfur galbeed oo awood soo sheegatay oo saddex dhibcood wata maxaad rajaynaysaa bari aniga saddexdeedu banaanka talaabtay ku gorgortay maayo maamul goboleedka Puntland oo aan leeyahay natiijooyinkooda hadda waa fiican tahay laakiin waa rajaynaa insha Allah inay maamulka wadataa Puntland waxaan saynu wada ognahay bari dheelaysaa naadi adag oo koonfur galbeed la dhahay u dhacaysaa oo saddex dhibcood wata Puntland hal dhibic leedahay haddii bari laga badin waa harasa maxaad rajaynaysaa bari insha Allah taageeray wasgeer heer koonfur galbeed baan ahay koobkana sidkana diyaarad baan ku qaaday hadii Ilaahay yiraahdo gawaariska diyaarad baan rabaa in saaro koonfur galbeed ka awood badan goolkana baydho la geenaya koobka anigu galmudug baan wataa galmudug saynu wada ognahay barkaatu soo dhawaada channelkeena hore official hadda ku cusubtahay ku xumaan subscribe share comment like hadana la joogteen waad ku maasan daawashadaada waa mar kale muuqaal cusub waxaan ku soo nahay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso waxaan dadweynaha weydiinaa afkaartooda ku aadan ciyaarta koobka maamul goboleedada ka socda Muqdisho garoonka injineerisow hadda waxaan joognaa dhalinyarta qaybo kamid ah salaam alaykum عليكم السلام soo dhawaada ku bilaabay magacaaga جامعة دحسيستا saaco koobkan maamul goboleedada adigu soo aragta ma taageerta ها maamulka la jirta adigu بطلان saynu wada ognahay Puntland waxay dheelaysaa bari koonfur galbeed la dheelaysaa maxaad u rajaynaysaa Puntland إن ساعة ودو قول قرتو adigaaga haddana daawanaya subscribe-ta kambaleelka furo like-ta saar commentiga share-tana haylaaw aduu yaa la jirta maamulka wadataa aan waxaan la jiraa maamulka Puntland ma la jiraa maamulka Puntland ma la socdaa Puntland bari dheelaysaa wada ognahay waxay u dhacaysaa koonfur galbeed oo awal soo badisay oo saddex dhibcood wata maxaad dareemaysaa bari inay guusha Puntland hesho baan dareemaya anigu صح aad ma haysanta hadda waxaan la joognaa salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawaado ku bilaabay magacaaga ما شاء الله تبارك الله أنا مقعي وهلا يرد عبد الساق عبد الرحمن cabdi isaaq waxaan ka hadlaynay dad afkaarta waxay ururinay dadkan magaalada Boosaaso waxaan ka hadlanaa koobkan maamul goboleedyada oo ka soconaya magaalada Muqdisho adigu ayaa la jirtaa واسك قرنيسة ده أنا إذا تغير واسك هير كوفر قلبت بانهاي كوب كنا سيد كنا ديارت بانكو قاعد هدي لهاي ده جواريس كده ديارت بان ربعين سعره bariiseen wada ognahay waxa ku haya Puntland oo yana kulanka hore baraj soo gashay oo guul raadinaysa maxaad dareemaysaa bari waan soo dhaweynayaa guushan waxa waaska garanaysaa labada dhanba meel walba filo waa filaarta kor loo taagay id walba sugaysaa laakiin waxaan rajaynahay in diyaarad saaro koonfur galbeed ku dijiyo ibaad kala duwan soo dhawaado ku bilaabay magacaaga shaakir ahmed sheekh waxaan ka hadlaynay koobka maamul goboleedyada ka soconaya magaalada Muqdisho aduu maamulka la jirta Southwest oo ah koonfur galbeed wata seen wada ognahay koonfur galbeed bari dheelaysaa Puntland ma dheelaysaa koonfur galbeed oo saddex dhibcood iyo Puntland oo aan hal dhibic wata bari maxaad dareemaysaa bariya guul baan rajaynaya bari dhankaygi koonfur galbeed oo badinaysaa salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaado ku bilaabay magacaaga أدو عبد الرحمن حسن عبد الرحمن مصطفى waxaan ka hadlanaa koobka maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho aduu maamulka wata horta بنادر banaadir wata banaadir seen wada ognahay iyadu waxa way baxday oo afar dhib waxay joogtaa soo final bay baxday marka maxaa rajaynaysaa maxaa koobkii u saadaalinaysaa بنادر بوصاد علينا يعني inay banaadir qaadi doonto hadda ma soo dhawaad salaam alaykum وعليكم السلام soo dhawaado ku bilaabay magacaaga waa dhawahay magacayga Cabdulle Maxamed Caawil Cabdulle waxaanu ka hadlanaa koobka maamul goboleedyada ka soconaya magaalada Muqdisho garoonka injineerisow aduu maamulka wada horta maamulkan wato waa Puntland ma wadataa Puntland bari waxay u dhacaysaa koonfur galbeed oo soo badiso awood sheegatay maxaa dareemaysaa bari والله حماسيد وان waxyaalo badan baa dareemayna insha Allah guusha anaga qaadi doona ma garatay anoo heer Puntland ma garatay gooshana micni waa insha Allah waa ka badin doona ma garatay rajo weyn baan leenahay ma garatay insha Allah waan heer Puntland waxaan ku baraarujinayaa inaan badino ma garatay guushaan qaadno waxa koobka yaa u saadinaysaa yaa u saadinaysaa waxaan u saadinayaa Puntland u saadinayaa wali waxaan dhexda ka sii jirnaa barnaamijkeennii aan afkaarta dadku u ururinay dadweynaha suuqa magaalada Boosaaso haddana waxaan la joognaa dhalinyarada qaybo kamid ah salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawaado ku bilaabay magacaaga magacay waa Ibraahim Maxamed Cabdi waxaan aad u taageeraa Ibraahim waxaan ka hadlanaa waxaan weydiinaa dadka afkaartooda koobkan maamul goboleedyada ka soconaya magaalada Muqdisho garoonka injineerisow adigu horta maamul goboleedkay wadataa أنا horta maamul goboleed koonfur galbeed baa wataa koonfur galbeed wadataa seen wada ognahay koonfur galbeed bari dheelaysaa koonfur galbeed awood bay soo sheegatay saddex dhibcood bay wadataa barina waxay u dhacaya Puntland oo awood sheegatay oo iyana hal dhibic wadata oo guul raadinaysa bari maxaad dareemaysaa niw bari haddaan taageerayaasha koonfur galbeed nahay maadaama aan ku faraxsanahay saddexda dhibcood aan wadano haddana waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa guul fiican inaan ka gaari doono
Puntland inkastoo aysan muhiim noo ahayn ay noo tahay annaga ciyaarta afardhamaadka ay noo tahay ku xisaabtanka weyn aan geli rabno laakiin waxaan leenahay Puntland mar badan bayna jaftay sanadkan jafitaan diyaar u noqotay insha Allah aad iyo aad koobkii u rajeynaysaa oo saadaalin adoo ku guuleysan doona new koobka horta waxa waaye nin walba naadigu wata u jecel yahay laakiin ummad Soomaaliyeed oo isku mid bay u tahay isdhexgal bulsho weeye laakiin waxaan leenahay koobka waa anaga dadka kale ciyaarta ay leeyihiin salaamu calaykum salaam soo dhawaado ku bilaabay magacaaga Cabdirasaaq Maxamed Cabdirasaaq waxaan ka hadlanaa koobkan maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho adigu maamulkee wadata horta sanad Puntland baa wadata Puntland seen wada ognahay bari koonfur galbeed bay u dhacsan maxaa rajeynaysaa bari insha Allah guul baa rajeynaysaa koobkii oo saadaalinaysaa Puntland ina qaado insha Allah soo dhawaado ku bilaabay magacaaga waan dhawahay Samira Maxamed Samiroy waxaan ka hadlanaa koobkan maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho adoo horta maamulkee wadata Puntland waxaan seen wada ognahay bari dheelaysaa naadi adag oo koonfur galbeed la dhahay u dhacsaa oo saddex bacdood Puntland hal dhinac leedahay hadii bari laga badin waa harasa maxaa rajeynaysaa bari insha Allah guul baan rajeynaa mana reebi karto koobkii oo saadaalinaysaa inuu qaado Puntland baa u saadaalinaya insha Allah kalsooni badan oo ku qabaa السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودو ku bilaabay magacaaga magacayga Abu Bakar Nuurdin Maxamed. Abu Bakar waxaan ka hadlanaa koobkan maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho adoo horta maamulkee wata sanad aniga sanadkan waxaan wataa koonfur galbeed wataa koonfur galbeed bari waxay u dheeraysaa waxa u dhacaysaa Puntland oo hal dhibic wato oo xanaaqsan oo guul raadinaysa maxaa rajeynaysaa bari waxaan rajeynaynaa inaan ka guuleysan doono hadii laabno waa badin doontaa koobkii u saadanaysaa in gobolkee ka dego waxaan geenaynaa bara waan geenaynaa waliba maya bara waa la geenayaa waliba caasimadda la geenayaa oo degada ah meel kale la geen maayo عليكم السلام ورحمة soo dhawaado ku bilaabay magacaaga محمد عبد الله waxaan ka hadlanaa koobkan maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho adoo horta maamulkee wata أنا كورت كونفور قلبي وي koonfur galbeed baa wata seen wada ognahay bari waxa u dhacsan Puntland oo xanaaqsan oo guul raadinaysa maxaa bari rajeynaysaa أنا waxaan rajeynayaa in barbardhac ku dhamaato Puntland soo baxdo naadiga labaad aan wati waa Puntland kan koowaadna waa koonfur galbeed koobkii u rajeynaysaa in qaado saadaashaada gobolkee jeceshay inuu ka digo koonfur galbeed axsamada baydhabo soo dhawaado ku bilaabay magacaaga anoo ku bilaabay magacayga Khayro Farxaan Cali Salaad Khayro waxaan ka hadlanaa koobka maamul goboleedyada aduu maamul gobolkeeda wata sanadka Puntland bari waxa u dhacsan koonfur galbeed oo saddex dhibcood oo awood soo sheegatay oo koobka looga baqayo maxaa rajeynaysaa bari inaan Puntland koobkan keenayno Garowe oo koonfur galbeed ka badinaysaa aan ka badino dhulka ku dareyno insha Allah waan arki doonaa salaamu calaykum calaykum salaam warahmatullah soo dhawaado ku bilaabay magacaaga waa dhawahay magacayga waa Abshir Cali Abshirow aduu horta waxaan ka hadlanaa koobka maamul goboleedyada maamulkee wata horta anigu waxaan wataa koonfur galbeed bari bay dheelaysaan Puntland baa u dhacsan oo awood sheegatay oo hal dhibic wato oo guul raadinaysa maxaa rajeynaysaa bari wallahi nasiibku waa gaadhgiisa laakiin labada xul waa laba xul oo adag Puntland inta badan waxa weeye sanadadan ayada qaadi jirtay waxa weeye sanadkan waxaan rajeynaynaa inaan geeyno magaalada Baydhabo koonfur galbeed sanadka awood badan bay sheegatay ciyaaro toy khabiira ah bay wadataa marka adigu koonfur galbeed baa wadataa anigu koonfur galbeed baan wataa naadigayga labaadna waa Puntland soo dhawaado ku bilaabay magacaaga Maxamed Cabdi Saciid waxaan ka hadlanaa koobka maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho adoo horta maamul goboleedkee wata sanadka Puntland baa wadataa Puntland waxay dheelaysaa bari waxa u dhacaysaa koonfur galbeed oo saddex dhibcood leh oo awoodda koobka loo saadaalinayo maxaa rajeynaysaa bari Puntland ma ka badinaysa oo rajeynaya guusha insha Allah koobka waxa ayaa u saadaalinaysa in qaado insha Allah Puntland baa wadataa waa xul adag oo Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaado ku bilaabay magacaaga waa dhawahay magacaygu waa Dhakab Saciid Carabi Dhakabow waxaan ka hadlanaa koobkan maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho garoonka Engineer Iriso aduu sanadka maamulkeeda wataa anigu Galmudug baan wataa Galmudug seen wada ognahay galabta dheelta ciyaarta way socota waa eber Hirshabelle la dheelsan maxaa rajeynaysaa galabta insha Allah guul baan rajeynaynaa anagu Hirshabelle waa ka qaadanaa galabta waa ka reynaa hadira beedmo koobkana insha Allah Dhuusamareeb ila Cawd waan ka dhijeynaa hadira bogolaado adu koobka waxa uu saadaysa Galmudug baa saadaysa koobka Galmudug baa iskale cidna kuma haysto sanadka naadiga maamullo awood badan sheeganaya jooga Puntland koonfur galbeed Banaadir dadku kuwaas soo saaday adna waxa wataa fakarka waxa wataa Galmudug Jubbaland hadii awood leedahay koonfur galbeed ka badisay maalinta dhaweyto shalana bareesh lama gashin Puntland oo la yaqaan waxay tahay ama sant adama salaam alaykum waalaikum salaam soo dhawaado ku bilaabay magacaaga aad iyo aad baan u Cabdullaahi Ali Maxamed baa la yiraahdaa Cabdullaahi waxaan ka hadlanaa koobka maamul goboleedyada ee ka soconaya magaalada Muqdisho garoonka Engineer Iriso aduu sanad maamulkeeda wataa koonfur galbeed wataa koonfur galbeed seen wada ognahay bari bay dheelaysaa Puntland oo awoodeeda la ogyahay la dheelaysaa oo guul raadinayso shalana barata soo gashay maxaa rajeynaysaa bari insha Allah bari waxaan rajeynayaa inaan ku badino 5 iyo weer koobkan aan geeyno magaalada Baydhabo oo badinaysaa bari waa 5 baan ku xisaabtamaynaa goolal badan baa ku badinaysaa waxba ma aragno xas waa arkana awoodina insha Allah waana soo dhaweynaa fakarkaaga
insha Allah abshir iftiin aadan abshirow waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho adu maamul goboleedkee wataa sanadka anigu horta guud ahaan ciyaartoyda Soomaaliya waxaan madalinayaa gaar ahaan ciyaartoyda Koonfur Galbeed inay sanadkan ay geeyaan magaalada Baydhabo koobka bariseen wada ognahay waxa u dhacaysa Puntland awoodeeda la ogyahay shalayna baraje gashay Puntland raadinaysa xarjeenaysa bari horta raajana markoo horta awood ilaa baska leh ciyaartuna sida marka la ciyaarayo waa cadaan iyo madow waxaan u maleynayaa sanadkan in noqon doonto sanadkii loo dabaaldegay Baydhabo insha Allah taala waka aad ma hasta fikirkaaga soo dhaweeyna soo dhawaado ku bilaay magacaaga waa Abdixafiid Maamud Nuur ku dhawaay Abdixafiidow waxaan ka hadlaynaa koobka maamul goboleedyada adu maamul goboleedkee wataa sanadka anu Koonfur Galbeed saan wada ognahay Koonfur Galbeed saddex bicood bay wataa awood ku soo badisay bari naadi awood leh oo Puntland baa idin dhacay bari maxaa rajeynaysaa Koonfur Galbeed ka awood badan goolkana Baydhabo la geynaya koobka Baydhabo la geynaya oo Baydhabo saadalay adu waxa Koonfur Galbeed u saadisay ha waa arkana insha Allah fikirkaaga soo dhawaado ku bilaay magacaaga waa dhawaay magacaaga Xasan Ali Maxamed xasan waxaan ka hadlaynaa koobka maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho garoonka injineer Riiso aduu sanadka maamul goboleedkee wadataa Koonfur Galbeed Koonfur Galbeed seen wada ognahay awood waa soo badisay awood baa soo sheegtay saddex bicood baa leedahay barina Puntland oo guul raadinayso awoodeena la yaqaan baad u dhacsan maxaa rajeynaysaa bari haddana waxa rajeynaa guul ee rajeynaa December waxa rajeynaa guul koobka yaa u saadalanaysa in qaado iyada oo saalinaa waxa rajeynaa guul in qaado Koonfur Galbeed u saadalanaysa soo dhawaado ku bilaabay magacaaga waa Mukhtaar Ali Maxamed Mukhtaar waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho garoonka injineer Riiso aduu sanadka maamul goboleedkee wadataa ana Koonfur Galbeed wataa Koonfur Galbeed baa wadataa aad baa u taageeraa mid kale Koonfur Galbeed bari bay dheelaysaa Puntland bay la dheelaysaa oo guul raadinaysa maxaa rajeynaysaa bari Puntland waxaan rabnaa inaan kooxda soo siino rabnaayo garoonka diyaarada ka soo burin هذا ما سووا لنا فكر كاي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله سو dhawaado ku bilaay magacaaga Abdixafiid Ciidi Abdixafiidow waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho adigu maamul goboleedkee wata sanad maamulka dee koobka qaadi jiray Puntland ma wadataa seen wada ognahay waxa idin dhacsan Koonfur Galbeed oo awoodeeda sanadka laga yaaban yahay guulna soo gaartay maxaa rajeynaysaa bari insha Allah waxaan rajeynaynaa guul koobkan waxa leedahay inaan koobka soo qaadno maamulkiisa ku soo celino maadaama nimanka nagu haysay ay xadheen ay rajayn Jubaland marka Puntland baa uu rajeynaysaa qaad koobka insha Allah oo rajeynaysaa salaam alaykum wa alaykum asalaam warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaado ku bilaay magacaaga saaxiib waa dhawahay magacaaga waa Cabdullaahi Cabdi Warsame Cabdullaahi waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho sax weeye adu maamul goboleedkee wata sanad saaxiib Jubaland waxay u badan tahay 90% inay hadho maadaama ay shalay baraja gashay awoodeeda aad baa god madow ku jirtaa maxaa dareemaysaa saaxiib rajo badan aan leeyahay maxaa rajada leeyahay maxay tahay hadda mar kaliya hadii garoonka ku soo noqdo guul aan gaari doona insha Allah dilaadmo insha Allah waa arkana waxaan dareemanaa insha Allah inaan soo noqoto fikirka soo dhaweeyna salaam alaykum asalaam warahmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaado ku bilaay magacaaga qadan Ismaaciil Xasan baa la yiraahdaa qadan waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho adu maamul goboleedkee wata sanad waxaan lahay Puntland ma wadataa Puntland bari way dheelaysaa Koonfur Galbeed bay la dheelaysaa oo awood badan bari maxaa rajeynaysaa insha Allah inay guuleystaan baan rajeynayaa koobkana qaadan koobkana halkan la keeno salaam alaykum salaam warahma soo dhawaado ku bilaay magacaaga magacaygu waa Cali Nuur Macallin Muumin Cali waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho si fiican adu maamul goboleedkee wata sanad anu Koonfur Galbeed ma taageeraa Koonfur Galbeed seen oo waana saddex bicood baa wataan guul baa soo gaarteen bari naadi adag baa hayo maamul goboleed adag oo Puntland maxaa rajeynaysaa bari insha Allah anu waxaan oran lahaa Puntland maadaama hore u qaaday haba la ciyaarna u daaban oran lahaa Koonfur Galbeed salaam alaykum asalaam warahmatullahi soo dhawaado ku bilaay magacaaga Sunis Mustafa Aadan waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho garoonka injineer Riiso adu maamul goboleedkee wata aniga waxaan wataa Puntland baa wataa walaalo Puntland baa wataa Puntland shalay baraja gashay barina waxa idin lahayaa maamul goboleed adag oo Koonfur Galbeed maxaa rajeynaysaa bari insha Allah guul baa rajeynaya walaalo ina badisaan rajeynaysaa waa arkana fikirkan waa ku soo dhaweeyay alaykum asalaam soo dhawaado ku bilaay magacaaga waa dhawaa saaxiib Cabdullaahi Aadan Ankal Dimaari kuma cadheer Ankal Dimaari dadka Ankal bay ku yaqaaneen waa ku soo wareynaa mar labaad waan ku faraxsanahay inaan soo qaybgashay waxaan ka hadlaynaa koobkan maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho adu maamul goboleedkee wata sanad ana horta hore laba wataa Koonfur Galbeed balaas Banaadir aad iyo seen wada ognahay Koonfur Galbeed bari way dheelaysaa Banaadir inay samafiin baa la wada ogyahay Koonfur Galbeed bari waxa ay Puntland oo adag maxaa rajeynaysaa bari laba goorba banaanka taalataa waa di bareeja galna xitaa banaanka ka hadal ma lahan aad iyo marka waxaan u rajeynayaa Banaadir inay qaado koobka yaa u saadanaysa ma waxa maadaama laba maamul goboleed wadatid kee rajeynaysaa inay koobka qaado Koonfur Galbeed iyo Banaadir Banaadir iyo Koonfur Galbeed baa rajeynaysaa koobka qaado aad iyo aad insha Allah waa arkana farkayga soo dhaweeyay
soo dhawaada ku bilaabay magacaaga magacaygana askari farxaan xaashi sakariyow waxaan ka hadlaynaa kuwa maamul goboleedada adu maamul goboleedkee wataa sanadka Puntland baa wataa Puntland bari way dheelaysaa waxaana yahay maamul goboleed adag oo koonfur galbeed oo guul soo gaartay maxaa rajaynaysaa inay badiyaan baa rajaynaya koobkana ayaa u saadaalinaysa waxaa u socda Puntland inay qaado inshallah waa arkana fikirka soo dhawaada ku bilaabay magacaaga magacaygu waxa weeye maxamed xamed sayid oo ku magac dheer shiina saruuq shiinow waxaan weydiinaynay afkaarta dadkan ururinay waxaan ka hadlaynay koobkan maamul goboleedada ka soconay magaalada muqdisho garoonka Generation adigu horta sanadka maamul goboleedkee wadataa anigu waxaan aad iyo aad u taageerayaa maamul goboleedka Puntland oo aan leeyahay natiijooyinkooda hadda waa fiican tahay laakiin waa rajaynaa insha Allah inay koobka noo keenaan saynu ognahay Puntland waxay dheelaysaa bari koonfur galbeed oo awood soo sheegato 3 bacod wadata baa la dheelaysaan maxaa rajaynaysaa bari insha Allah waxaan rajaynayaa inay guul noo soo hoyaan oo ay keenaan koonfur galbeed afka darsiyaan macnaha aad iyo aad ay garaacaan macnaha waxaan rajaynayaa in koobka noo soo xariyaan si awalba noogu soo xiran jireen koobka aad iyo marka waa kan adoo ku bilaabay magacaaga waxaa la dhahaa maxamed mustafa cabdilaahi ku magac dheer qayska ummadda magac waalan baa wadataa magacan ba ka boodayay adigu waxaan ka hadlaynaa anaga koobka maamul goboleedada ee ka socda magaalada muqdisho garoonka injineer yariisu adigu bari yaa wadataa koobka sidiisa anigu xaniyahaygaan saaranahay Puntland baan wataa xaniya cad cirka cabaari jira miyaane waxa weeye saynu wada ognahayba bari waxa u dhacaysaa koonfur galbeed oo awood soo sheegatay oo 3 bacod wadata maxaad rajaynaysaa bari aniga saddexdeedu bannaanka taalaabtay ku gorgortay maayo bannaan bay taala koobkana maxaa leedahay koobka yaa saadaanaysaa gobolka Puntland kaasi saadaalintaysiiba waxaan sii hagaajinayaa dhulkii waxa way koobka la keenin lahaa iyo dabaaldegyadiisii baan hadda diyaarinayaa ay ku jiraaba aduu waxa ka sheekeynaysaa waxa weeye xagee laga keenay aad baa maasatay soo dhaweeyna fikirka